بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونحسن داودي الواحد كسر دواتان وركي قلنا تلفزيون كعالم يونيفرسال ودي كيمان يستوديو تلفزيون كله هي مجلة أرجيسة هي عاصمة سومالي لان أنا جو علقة معيرة يدي ورمية قد بدأ وقدر كرون لو وركنا قلبنا مو حكم ده taliyaha ciidamada booliiska ee Soomaaliya General Cabdi Xasan Xijaar oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in la soo gabagabeeyay weerarkii waqtiga dheer qaatay ee argagixisada al-shabaab ay ku galeen hotel Xayaat ee magaalada Muqdisho. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegay in weerarkaasi uu geystay dhimashada 22 ruux iyo dhaawaca 117 qof. waxa sidoo kale ku daawan doontaan inta warkeena galmo socdo madaxweynihii hore ee dawladda federaaliga ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta loo dhaariyay xildhibaannimada abidka ee golaha shacabka ee Soomaaliya. wararka kale ee daawanaysaan inteena warkeena galmo ku guda jirno ciidamada booliiska ee Soomaaliland waxa ay gacanta ku soo dhigeen nin laba qof midna dhaawacay midna dhimasho u geystay magaalada Hargeysa isagoo afka duuban mudana ciidamada booliiska ee Soomaaliland ku howlanaayeen soo qabashadiisa. daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada warkeena galabnimo ugu door karoon leh haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii galabnimo oo fidsan.